والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. waxaan aad ugu faraxsanahay munaasabada maanta lagu cazumay aad ayaan ugu hambaleynayaa dadkii ugu cazumay hadaan hawsheeda u galo anoo salaan ka gaareen oo waqtigeena gaaban yahay run ahaantii waxa walaac weyn i geliyay markaan arkay dhalinyaro soo koraysa oo isticmaalaya daraagiska noocyadeeda kala duwan gaar ahaan tubaakada taabuuga iyo xashiishka ilaahay baa idinku dhaarsheeyay ma tanba na qabataa magaalada muqdisho waxaa ku badanaya gabdhaha qabatimay daraagiska qaybaheeda kala duwan gaar ahaan cirbada loo yaqaano betatiina cirbada betatiina waxaa isticmaalaya in lagu yareeyo xanuunada dhexdhexaadka ah ama mid daran qofka cirbadan badsada ayuu qatimayaa kadibna la'aanteeda ma joogi karo oo nolosha xariir ku noqonaya sidaas ayayna isugu badashaa daroogo waxaa jira gabdho iyo wiilal isticmaalaya kuwaas oo gacmahooda meel walba cirbada isaga duray goobaha farmashiye ee magaalada muqdisho ayaa lagu iibinayaa iyadoo halkii cirbad la iibiyo 1.5 ama $1 bar walaalayaal arintaano ha lagu baraarugo dawladeena sharafta badan arintan fiiro gaar ah ha u yeesho waalidiinta idinkuna ogaada gabdhihiina ama wiilasheena waxa ay qaban doonaan gunti iyo gabagabadii baaq ayaan dirayaa baaq ku socoto labada gole ee sharci dejinta sida baarlamaanka iyo aqalka sare ku socoto wasaaradda caafimaadka ku socoto wasaaradda ganacsiga ku socoto wasaaradda waxbarashada ku socoto culimo diinka Soomaaliyeed ku socoto ururada dhalinyarada iyo haweenka ku socoto dhakhaatiirta Soomaaliyeed ku socoto warbaahinta qaybaheeda kala duwan markaan arkay dhibaatada ay keento daraagis qaybaheeda kala duwan oo ay qusayso waa in ay wax ka qabtaan qodobada hoos ku qoran oo ah wacyigelin waa in labada golo ee sharci dejinta ah waa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo saaraan sharci ka hortagaya isticmaalka iyo ka ganacsiga muqaadaraadka gaar ahaan tubaakada taabuuga iyo xashiishka wasaaradda waxbarashada caafimaadka daladaha waxbarashada waa in ay wacyigelin iyo baaritaan dhab ku sameeyaan maamulada iyaga hoostaga 3 dhakhaatiirta Soomaaliyeed waa in wacyigelin iyo baaritaan ku sameeyaan qatarta uu leeyahay tubaakada taabuuga 4 culimo diinka Soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay inay wacyigelin joogta ka sameeyaan masaajidada iyo goob kasta oo wax u marin karaan dadweynaha 5 ururka dhalinyarada haweenka waxaa looga baahan yahay wacyigelin joogta ah oo ay ka sameeyaan goobahooda 6 saxaafada qaybaheeda kala duwan waxaan ka codsanaynaa wacyigelin iyo baaritaan lagu sameynayo qatarta ay leedahay taabuuga ama xashiishka gunti gabagabadii waa in aan u howlgashaan badbaadinta dhalinyarada soo koraysa wabilaahi tawfiiq magacii waa Dr. Cali Cumar Abati gudoomiyaha xisbiga midnimada ummadda Soomaaliyeed wabilaahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh